Cottage Grove waa degmo xasiloon oo ku taala gobolka Oregon ee dalka Mareykanka, halkaas oo qof waliba uu ku nool yahay nabad. Magaalo ay rabshadaha iyo dambiilanimadu aysan ka helin wado 10 sano. Sidaa darteed waxaa dhacay fiidnimadii March 19keedii 1983 waxay argagax weyn ku noqotay dadka degan magaaladan. Habeenkaas nasiib darrada leh, Diane Downs oo 18 jir ah waxay wadatay baabuurkeeda casaanka, waxaana ay iyada iyo saddexdeeda ubad ahiba u socdeen gurigooda iyadoo waqti fiican kula soo qaadatay beer ay leedahay gabadh saaxiibadeeda. Gabadheeda 7 jirka ee Cheryl waxay ku huruday kursiga hore, halka Christy oo iyana 8 sano jir ah ay aamusnaan ag fadhiday walaalkeeda ka yar ee Danny oo 3 sano jir ah oo ku seexday kursiga dambe. Carruurtu aad ayay u daalanayeen sababtoo ah maalintaas oo dhan ay ciyaarayeen. Intii ay gaadhiga ku waday waddo madow oo bannaan, waxay Diane si kadis ah ku aragtay nin taagan bartamaha wadada oo gacanta haadinaya una muuqday qof caawimaad rabay. Sidaa darteed waa ay istaagtay iyadoo ninkii ku leh ma dhib ayaa jirta. Ninka ayaa ku soo dhowaaday isaga oo ku leh luuqad adag, haa dhib ayaa jirta, gaadhigaaga ayaan u baahnahay, isla hadda keen furaha. Markiiba waxa uu la soo baxay baastoolad waxaana uu ku qabtay Diane. Inkastoo ay jirtay khatarta halista ah ee ku xeernayd nolosheeda iyo nolosha carruurteeda, Diane waxa ay go'aansatay in aysan baabuurkeeda si fudud ugu wareejin ninkan qariibka ah. Sidaa darteed waxa ay iska dhigtay mid furaha ku tuuraysa duurka, taasoo si weyn uga xanaajisay ninkaas. Sidaa darteedna waxa uu rasaas ku riday daaqadda dambe ee ay carruurtu ku jireen. Diane markiiba shookaanta gaadhiga ayay halabsatay, waxaanay gaadhiga ku kaxaysay xawaare sare. Si degdeg ah ayuu ninkiina 2 xabbo oo rasaas ah uga dabageeyay, kuwaas oo midkood Diane ka haleeshay gacanta, balse iyada oo dhaawacan ayay u jihaysatay dhanka cisbitaalka. Waxay ahayd goor ay dhaaftay 10kii fiidnimo ee habeenkaas markii Diane timid cisbitaalka oo ay caawimaad weydiisatay. Sidaa darteed dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadku waa ay ku soo ordeen. Iyada dhaawaceedu ma uu ahayn mid daran, laakiin carruurtu waxa ay ku jireen xaalad halis ah. Cheryl iyo Christy waa ay dhiigbaxayeen waana ay dhimanayeen. Danny sidoo kale waa uu dhaawacnaa oo kooma ayuu ku jiray. Booliska ayaa durbadiiba yimi, waxaana iyaga oo ay weheliso Diane ay tageen goobta ay sheegtay in shilku uu ka dhacay, balse wax caddayn ah kama ay soo helin oo muujinaya in meesha shil ka dhacay. Boolisku waxa ay weydiiyeen ninka weerarka ku soo qaaday iyada iyo carruurteedu sida uu u ekaa, waxaanay sheegtay inuu ahaa nin dhererkiisu dhexdhexaad yahay, gashan surwaal iyo jacket jeans ah, lehna timo dhaadheer oo badan. Sawirkii ay boolisku sawireen oo ay ku raadinayeen nin tilmaamaha leh waa la waayey, haba yaraatee in la soo helo cid astaamaha Diane ay sheegtay leh. Mahadsanid daawade, qaybtii hore ee sheekadaasi halkaas haynoo joogto, waa ino iyo qaybta dambe haddii Allaha awood daleedmo.